dadku aad bay u caraysnaayeen markii ay isugu soo baxayeen wadooyinka magaalada Muqdisho. Dibadbaxyadana waxa ay daba socdeen kadib markii askar ka tirsan booliska dowladda federaalka ah, gaar ahaan kuwa ku sugnaa isgoyska Howlwadaag, ay saaka halka ku dileen wiil kaxeynayay mooto bajaaj iyo sidoo kale wiil kale oo la socday. dadka taayare ayay ku gubeen wadooyinka waaweyn ee Muqdisho sida Wadnaha iyo Maka al-Mukarrama, waxaana ay ku dhawaaqayeen erayo ay cadaalad ku dalbanayeen. waxaa jirtay gaadiid ay burburiyeen dadkan iyo sidoo kale xarumo ganacsi oo ay awood ku xireen. saacado badan waxaa hakad ku jiray isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha ee magaalada Muqdisho, waxaana wado walba wareegaya dad badan oo raxan u socda, kuwaas oo muujinaya sida ay uga xun yihiin dhibaatadii dhacday. niyo horta naf walba geeridu waa dhiminaysaa oo waxa waaye adduunkan qofku waaraya ma laha, kullu nafsin daa'iqatul maut. saaxiibkeen deeqow ilaahay ha u naxariisto, waxa waaye waqtigiisa inta ku ekaay aniga saaka banoon isla dheelay 12 saac hal saac ee baran soo kala tagnay. aniga isgoyska Howlwadaagan hoos ugu laabtay asina xaafadiisa oo aaday ma garat. marka asiga iyo abtigiisa hadda macnaha in la dilay isla markii xabadii aan maqlay ii sheegay asoo meeshii yaalana uu maaday. ilaahay ha u naxariisto, wax kale oo sheegna male. aniga banoon isla dheelnaa ilaa iyo ninkan intuu ka soo baxay ciyaalkii naga yaray waa loodkii naga yaray waaye, intaana waa isla dheelaynay. ciyaalkii degmada u dheelo waaye, xaafadoo degan yahay, deegaan waaye. marka Allah u naxariistaniyo, Allah u naxariisto insha Allah. ها ciyaartay waa waliba fanaanada ma iska siibin, sports waa ugu jirtaa wallahi waa arki kartaa fanaanada waa ugu jirtaa, maaliyada ma iska siibin. ilaahay ha u naxariisto, ilaahay u naxariisto, wax kala sheegna ma naqaan. deeqo walaalayaalow annaga waana la dhibaateeyaa, waana la dilaa, waana la dhaawacaa, wax kasto dhibaatada hadda socoto xabadda gurkeena ka yeerayso, xabadda gurkeena ka yeerayso codkayga xiriya xanaaq darteed u xiriya, balse wuxuu sababay wadooyinka xiran kadib markii saaka la dilay wiil darawala oo mootola iyo ninka saarnaa darawalkii oo basjeerigi. kadib dagaalka wiil abtigiisu waa waliba saasoo ku bilowday. haddana aan kula hadlay laba nin la dilay oo ciidanka dowladda naga dileen, waliba kuwa isgoyska Howlwadaag isgoyska Bakaarana lagu dilay. saddex marayna waxaan u maleynaynaa in ay sii socon doonto dagaalkan, shacabka iyo ciidanka kala noqon doonta. hadda waxaa dhintaa la ooyaa gabar kale oo tarbuun ku dhimatay. dowladdu waxa u baaqaynaa inay iscasilaan kow Khayre iyo Farmaajo iyo Yariisow inay iscasilaan. Khayre iscasilo, Yariisowna iscasilo.